muwaadiniintii reer Somaliland ee hadda ay kaawo u shaqayn jiray in halkan loogu soo hanjabayo dawladda Somaliland xaq waxay u leedahay inta ay xaq u leedahay inay ka marto dilka marxuumkaas waxaan aaminsanahay marxuumkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan maamulka Muqdisho ilaahay raajicuun ilaahay naxariisto marxuum Cabdinaasir Muuse Xaaji Cabdi Xaddi oo habeen hore xalayta laga helay meydkiisii gurigii uu ku jiray la filayay in habeen hore la dilay marxuumkaas gacan ka xardaranay dishay marka ugu horeysa ilaahay baa yidhi kullu nafsin daa'iqatul mawt waynu ilaahay baynu baryaynaa inuu naxariistiisa jannada ka waraabiyo Muuse Xaaji Cabdi Xaddi adigana adeer waanu ku taxsiyadeynayna ilaahay samriye iman hakaasiyo naf walba ilaahay baa leh ilaahay bayna u noqotaa marka waxaan leenahay qadar alla weeye inuu inankaaga halkaa ku dhinto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu naxariistiisa jannada ka waraabiyo adigana ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu cawl khayr qaba uu ku siiyo sidii maareeyaha hawada maamulka hawada Somaliland uu sheegay Umar Sayid marxuumkaasi wuxuu u shaqayn jiray hay'adda duulista caalamiga u qaabilsan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee kaawa la yiraahdo xilligii mashruuceedu uu dhamaaday ee Soomaaliya ka tagisay ayay ku wareejisay shaqaalihii in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeeyaan heshiisyadii Somaliland iyo Soomaaliya ay gaadheen intii ka dambeysay 2012 oo ay ku jirtay hanaanka la doonayo in loo maamulo hawada Soomaaliya iyo Somaliland oo heshiisyadaas oo la inoo qabtay oo dawladda ugu horeysay qabatay dawladda Ingiriiska ahayd labada dawladoodna ay kala saxiixdeen lagu heshiiyay in laga maamulo Hargeysa iyo Xamar laba barood laga sameeyo qalabadoodiina la keenay lacagta ka soo baxdana la kala qaybiyay oo labada Somaliland iyo Soomaaliya loo kala qaybiyay heshiiskaasina uu ku qabiyoobay dawladda Soomaaliya oo ay heshiiska ka baxeen hadda intaan mashruuca maxaan ku dhahay Somaliland aanay hawadeeda iyadu dib ula soo noqonin oo iminka muran ka taagan yahay iyaguna ay cidda muranka bilaabay ay yihiin oo hawada khalkhalinaysa waxa la hayaa oo xaqiiqo ah muwaadiniintii reer Somaliland ee hadda ay kaawo u shaqayn jiray in halkan loogu soo hanjabayo hanjabaadaas iyo waxa isku waqti noqday marxuumka lagu dilay meesha lagu yiraahdo Muqdisho lagu dilay ehelkiisii iyo qaraabadiisii waan ka taxsiyadeynayna dawladda Somaliland xaq waxay u leedahay inta ay xaq u leedahay inay ka marto dilka marxuumkaas oo ah maamulka dawladda Soomaaliya marxuumka meydkiisa in diyaaradaha la soo saaro loo keeno waalidkii oo codsaday hadda aanana afduubaynin cid kalena aan si khalada u maamulaynin oo hadii inankiisii la dilay kaliya uu doonayo isaga iyo qoyskiisii inanka halkan ku aasaan Somalilandna waxay xaq u leedahay muwaadinka ka tirsan qaranka reer Somaliland ee xamar ku dhintay in waa marka ugu horeysa la keeno meydkiisii halkan la keeno waa marlabaadka maamulka dawladda Soomaaliyana inay jawaab cad ka bixiso sifihii uu ku dhintay iyo cidda loo hayo siyaasadeen annagu mayno hadda dadka ay qabteen oran mayno waa lagu raad gadanaya oran mayno waa dadaan dilin laakiin maamulka dawladda Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay keenaan warbixin cad iyo ciddii ay u hayaan inay marxuumka dileen ayaa iyaga maxaan ku dhahdaa laga rabaa waxa kale oo laga rabaa meydka inaanay iyagu siyaasadeyn meydka daasidiisa eheladiisa xaq u leh eheladiisa in lagu soo simo ay diyaaradda iyagu soo saaraan cid qabaqaabiso eheladeedii way u joogtaa meydka iyada Somaliland baa bixinaysa kirada maxaan ku dhahdaa meydka laga qaadanayo sharayga ay ku soo qaadayaan dawladda Somaliland baa bixinaysa
dooni mayno inuu intaas sii maro dooni mayno dhaawacyada imika jira inuu keeno tuhunka waxaa keenaya iyadoo raggii iyo inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruuca Shikaawa ee maanta Somaliland jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen hanjabaada loo soo hanjabayo oo cidda u soo hanjabaysaana ay tahay hay'adda civil aviation ee Soomaaliya u qaabilsanayn maamulka hawada iyo hay'adda nabad sugidda inay labadaa yihiin ayaa cid kastana tuhul ku keenaysa in marxuumkana ay ku dileen maamulka dawladda Somaliland ayagoo raacaya ama maxaan ku dhahdayay maamulka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Somaliland ay isku maandhaafsan yihiin arrimaha siyaasiga ee jira kuwan aanu isleenahay mala idinku dambi kuma leedina Soomaaliya dambi ku laho Somaliland haday Ethiopia wada hadleen iyo haday qaran kale oo adduunyada jira wada hadlayaan Soomaaliya waxay ka wada hadlayaan qura dawladnimadooda iyo qarankooda iyo danahooda waa inta dastuurku u fasaxayo Somaliland waa inta dastuurkoodu u fasaxayo Soomaaliya shaqo kuma laha dastuurka Somaliland mana ay matasho arrintaas waxaan ku soo ururinaynaa waxaan doonaynaa arrintaas inaanan yeelanin xanaf siyaasi ah Soomaaliya iyo Somaliland isku dalbay ahaan jireen dad badan oo Somaliland maanta xamar jooga qaar baa xukuumadda iyo maxaan ku dhahday hay'adaha maxaan ku dhahday siyaasiga ee Soomaaliya ka tirsan qaar baa shaqaalaha ka tirsan qaar fara badan oo Soomaaliya ah ayaa degan maanta Somaliland goboladoo dhan wada degan jaamacadaha Somaliland wax ka dhigta Burcad degan Hargeysa degan Gabiley degan Boorama degan dadka waxaan leenahay waa dad kamida ajnabiga kale ee dadka ee Somaliland degan nabadgelyo ku degan yihiin nabadgelyana way ku deganaanayaan dooni mayno markaa in ay keento xanaf siyaasadaysan qof dhintay meydkiisana in ehelkiisii loo soo diro waajibka intii dawladdu ku leedahay in ay ka gudato adeerkeena waxaan leenahay odagana waxaan leenahay adeer inankaagu muu noolaadeen intan oo dhan sida waalidkood iyo inamadooda iyo dadkooda u dhinteen qadarka Ilaahay baa keenay inuu saacada iyo maalinta dhinto mishkilada abuuri mayna waxaynu leenahay oo anagu iyo adiguna aan ka ogolahay walaalaheen waxaan leenahay noo soo dira xanafta siyaasiyana ha beerina qor khilaafka inoo dhaxeeyana ha ku darina adigana waxaan leenahay meedku hadduu inoo yimaadana waynu aasayna mishkilad kalena ku dari mayno haddii layna kalifana bal dib baynu tashanayna aad iyo aad baa u mahadsantiin kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto marxuun cabdinaasir muuse xaaji cabdi xaddi oo lagu dilay magaalada muqdisho oo meydkiisa laga helay xalay toole cabdinaasir wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah reer Somaliland oo bartay cilmiga duulista iyo aviationka hay'adda ECAO mashruucii ka kasna ay qaateen markii dambena u shaqo tagay hay'adda duulimaadada ee Soomaaliya oo halkaa ka shaqaynayay cabdinaasir wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo runtii beebaris qora sida hay'adda duulisaan aan war ku hayno wuxuu qoray beebar uu kaga hadlayo sida ugu fiican ee hawada loo wada maamuli karo beebarkaasoo uu kaga hadlayay sidii loo profit garan lahaa siyaasadda looga saari lahaa hawada wuxuu soo bandhigay madaxda hay'adda duulista Soomaaliya marar badan bay dib ugu yeedheen oo ay wax ka weydiiyeen beebarka uu qoray sidaan xogta ku hayno maalmihii ugu dambeeyay isaga iyo shaqaalihii kale reer Somaliland ee magaalada Muqdisho joogay waxay dareemayeen cagajugleyn iyo hadidaad iyo inaanay runtii aanay safe ahayn iyadoo baadhid la leeyahay way socotaa haddana runtii annagu hay'ad ahaan waxaanu aaminsanahay marxuumkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan maamulka Muqdisho oo dil qorshaysan ku sameeyay marxuumka iyagoo u aaneynaya muranka hawada ka taagan iyo isqabsiga ayaamihii ugu dambeeyay Soomaaliya runtii hay'adda duulista ee Jamhuuriyadda Somaliland muddo 2 sanadood ayay u diyaar garoobaysay inay maamulkeeda gacanta kula soo wareegto wax xogoon xamar uga baahnayn iyo cid kale toona ma jirto hawadana qalab baa lagu maamulaa
qalabkii iyo shaqaalihiiba muddo aan qarsoonin baanu tababaraynay iyagana marar badanba kamaanaan qarin in haddii heshiisyadii la kala dambeeyey hawada runtii ay fulin waayaan inaan hawadeedii la wareegi doono aad iyo aad baanu runtii uga xunnahay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelka reer Somaliland oo tacsiinaynaa tacsiida weyn wasiirka arrimaha gudaha iyo booliska Somaliland isaga sheegi doona laakiin hay'ad ahaan shaqaalaha kale halka joogana nabadgelyadooda waxaan runtii leenahay aad iyo aad u taxadaraan inta go'aanka Jamhuuriyadda Somaliland soo baxay wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo alla ileh haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega